بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله ما أنتم حن بلابنا إن السنة وإن شاء الله بعد طبعا ما أنتم حن بلابنا إن شاء الله chapter 8. chapter 8 بحكم دي هي chapter بوجا marketing management. وحكى هذا واحدة ضغط marketing internationally. سيد marketing لو سمعت كلام أيضا الجوجو international أما global market. chapter كان waxaan ku baran doonaa factorska la rabo in la ogaado ama in laga arko marka shirkadda ay rabto inay dibadda aado. Go abroad sida xawaaladaheena oo kale anaka xawaaladaheena oo dhan waxay ka shaqeeyaan dibadda ka shaqeeyaan Soomaa waxay ka shaqeeyaan waa loo go abroad. go abroad kaas marka muxuu yahay markay dibadda aadaan maxay arkaan sidoo kale waxaan ku baran doonaa chapterkan international market ka sidee loo galaa specific international market ka markii research markay sameynayaan farqiga u dhaxeeyo what are the difference between marketing in developing and developed market suuq cusub iyo suuq hore u jiray what are the major ways of entering foreign market waddan ajnabi ah sidee ganacsigiisa u gali kartaa shirkadaha ilaa intee la rabaa inay dibadda aadaan how do market influence country of origin effects competing a global basis shirkadaha marka dhowr magac loo kala magacaabaa magacaas marka dadka badan waa ku weeraraan magacaas waxa kamid ah global industry waxa kamid ah global film waxa kamid ah international company waxa kamid ah multinational company waxa kamid multinational corporation waxyaalo badan maxay kaliya marka global industry waxa uu competitors strategic position in major geographic or national market are affected by their overall global position suuq guud hada biyahan caafiga kale hada anaka Soomaaliya loo soo dhoofi Soomaa laakiin hadii Soomaaliya loo soo dhoofi lahay waxaana saameyn lahay suuq guud oo caalami laakiin mobiladan oo kale price-kiisa iyo wixii soo waxaana saameeyo price-ka caalamiga sheyga ugu badan oo daily life-ka oo aad arkaysa maanta oo aad ugu xiran suuqa guud ee caalamka maxaa kamid ah suuq barnaamijyada price-ka sheyga kamid ah yaa sheegi karo maxaa kamid ah shidaalka kale shidaalka maanta hadduu ka kaco Ciraaq ama hadduu ka kaco Dubai ama hadduu caalamka oo dhan ka kaco shidaalka isla markiiba anaga Soomaaliya waa kaca waxaa kamid ah cuntada qudub daruuri sida bariiska sokorta sida cadayda waxyaalahaas oo dhan if the price changes today price-ka maanta hadduu isbedelo maxaa dhacay if the price changes today it will affect over all the market in the world caalamka oo dhan ayuu saameynaa oo wuxuu ku yeelanaa impact ku yeelanaa global theme maxaa laga wadaa global theme waxaa laga wadaa operates in more than one country waxay ka shaqeysaa in ka badan hal wadan sidoo kale shirkadda caalami waa waxay leedahay R&D caalami ah production caalami ah oo international scale logistics department oo caalami ah marketing oo caalami ah and financial advantage not available to purely macnaha wadanka ay laga leeyahay kaliya kuma xirno ee adduunka oo dhan ay ku fiirsan tahay shirkadda noocaas iyo xasuuso kar maskaxda ku soo dhici karo haye ninka hadaa shirkadu sheegay kamid ah Soomaa Coca-Cola Soomaa McDonald's hada Soomaali joogno Taj Dahabshiil shirkadahaas oo dhan kamid ah maxaa la shirkadahaas oo dhan maxaa loo yaqaanaa global film shirkado saameyntooda ku xirnayn hada maanta way saameynaysaa laakiin ma u dhimanayso maxaa yeelay Soomaali badan oo dibadaha jooga ayaa wax isku xawil malaayiin dollar ayaa Soomaali badan oo Dubai joogo ama Kenya joogo ayaa isku xawil Tanzania Uganda kulli Soomaa marka qofku kuma qasbana haye su'aasha daayil isweydiinaya tii waa marka qofka marka aad rabtid inaad dibadda aadid you want to start dibadda foreign country where you start and how you start waxaad rabtaa in aad shirkad dibadda ka jirto aad u samaysid marketing strategy ama marketing plan ama dibaddii ayaa rabtaa inay aado what are the steps the company should follow shirkadda steps ay marayso maxay tahay step koowaad
deciding whether to go abroad shirkadda marka ay rabto inay dabadda aado maxaa laga rabaa deciding which market to enter horta intee aaday salaada markaad tukanaysa marka horna niyeysto duhur miyaa tukane casr maa tukane marka koobka waxaa waaye xaggee aadaysaa horta which country are you going how to enter the market suuqa see ku galaysaa deciding the marketing program which marketing program we have two different marketing programs hore usoo aragna soma deciding the marketing organization which marketing organization we are going to follow steps aan raacayno oo marketing organization ka aan qaadanayno KY midka aan raaci doono oo rabno inaan ogaano which one midka aan rabno inaan fahanno KY which marketing strategy we are going to follow marketing strategy aan raaci rabno KY deciding whether to go abroad marka aad rabtid dabadda inaad aadid ama inaan abroad ka samaysid maxaa laga rabaa some international market present better profit opportunities on domestic market suuqa hadda shirkad waxaa jirto bad oo Haas Petroleum nima Soomaaliya iska xasan iyo waxaas xaashima lama qaan oo dhulkaas sool isanay meelaha iga leeyahay malayna shirkadaas Soomaaliya gudaheeda gaar ahaan koonfurta waxa uga fiican Afrika uga fiican Soomaaliya inkastoo markii hore xagga ay ka soo bilaabatay laakiin markasta qofka Soomaaliya inkastoo shirkad ay tahay Ugandese ama Tanzanian ama Rwandese ay tahay registrationkeeda xagga laga bilaabay laakiin the owners of the company the domestic market keeda Soomaaliya noqonaa Soomaaliya markay Soomaaliya joogaan kuma joogayaan international company waa qof Soomaaliya oo meel wax ka furto shirkadaas Muqdisho hadda sidoo hore kuma ahan waa ogtiin Soomaaliya Team needs larger customer base to achieve economic of scale. Team shirkadaha wants to reduce dependency on one market. Sidaas wada hal meel ku xiran tahay. Marka dadka maxay u sameeyaan? Bini aadamku dhan dependency ku xiran oo necib yahay. Single customer hadaa tahay dhibaato waa. Hadda shirkadda hormuud oo kale Soomaaliya ku xiran tahay. Soomaaliya hadday maanta dhibaato ku dhacdo waddanka Soomaaliya ama daad ku dhaco ama wax ku dhaco ama dagaal ku dhaco ama ay xiranto shirkadda hormuud ma sii shaqeynay. That's why the hormood waxay ku qasban tahay inay franchise samayso dabadda inay aado that's why waxaan xiriir inay ka sameeyaan Ethiopia Soomaa that's why the fiiri Safaricom inta ka barakatid Safaricom si 100% buuxdo ayay waxay ka furteen isgaarsiin waxa la dhaho Ethiopia maxaa yeelay faa'iido badan ka helaysaa shirkadaha waaweynka case studies ku soo qaadanayna sida Walmart iyo Tesco iyo Carrefour iyo shirkadahaas oo dhan adduunka waa loo wareegaa waa loo waxaan international business kan waa soo baxday waa hal meel lagu ekaalaya qodobkan waa wax badan in la xiro they want to reduce the dependency on market hal meel lagu ekaado fiican ninka ragga muxuu u labaystaa ya adoo shaqaale ee maxaa ganacsi u bilaabay you need not dependent on single income you do not need to depend on single home or wife you need to have always options. Options is power. When you have different options, you have a power. Marka option badan leedahay, awood ayaa leedahay. But when you are dependent on single market, then waxa la dhahaa power of waxa jirta wax meel lagu cabiro the attractiveness of the industry. Suuqa inuu suuq attractive yahay markii la cabirayo waxa lagu cabiraa Portal 5 force. Portal 5 force waxa kamid ah power of shan waa moogtahay waxa uu horeeya threat of substitute threat of new interest power of buyers yes customers ka for example waxa tahay maqaayad ka gado hal shirkad oo diyaaradaha ay cuntada u diyaarisaa hal airline oo kaliya u shaqeysaa shirkadda xiranta maqaayadda maxaa ku dhacaysa waa xirmay markii shaqada marka maqaayadda soo xirtay wayna soo xirtay maqaayadda kale ay fly soo xirnay Salam Air soo xirnay maxaa la dhahaa shirkada kale Juba Airways daan shirkada kale soo xirnay فهم شركتها counter attack global competitors شركتها انت كو imaado wadankeeda ana wadankeeda ka aadis انت idinku soo weerarnay waxa ku weeraraysh customers going abroad require international service deciding whether to go abroad before making decision inta go'aankaas gaarin koor maxaad u baahan tahay Before making decision or in a debate idea, the company must also weigh several risks. Debate idea, marka business ka debate ka furaysid, waxa leedahay risks badan leedahay. Maxaa kamid risks?
Few might not understand the foreign presence adduunku waxaa ka jira waxyaalo badan shirkaysiska ugu fashilka badnaay oo la yaqaano waxaa waaye McDonald ayaa waxay ka furatay India markaas waxay kariyeen beef burger Hindiina ogtihiin hilib lo'da waa la caabudaa marka waxay the biggest waa khadka internetka biggest failure ayay ahayd case studies aad u qurux badan oo chapter kan leeyahay waa idin tiri doonaa insha Allah failing to offer competitively attractive product few might not understand foreign country culture few might underestimate foreign regulations and incur unexpected costs few might lack managers with international experience foreign country might change commercial laws devaluate currency and expropriate foreign property international process ka maxaa kamid marka dibadda aadid maxaa waaye no export activities stage 1 export by independent representative establishment of sales hada shirkado Soomaali oo wax dhoofiya jira laakiin waa laga gataa marka adiga hadaa wadanka tagtidba oo shirkadii ay ka furtay meesha oo wadanka ay ku dhex gadid ayaa ka fiican markaas like hadaa inta dhoofileed hada anaka shirkad wadanka amni ma ka jira maana haduu Soomaali maanta amni ay ka dhacdo wadanka oo isbedelo saan loo sulmo joogay shirkado badan ajnabi ay imaanay hadda xogaayir amni yaro airport laga helay shirkadeen localka hawada ka baxeen أول حاجة سنة جبا يدالها هي سنة صمان دالها هذا أيضا كيات عمل أي نوجوكتا أيضا كل هذا الشركات الصومالي أو مان إنترناشونال صح السعودي آلي كرتو كي آلي كرتو دبي آلي كرتو دالها كجرتا جبا ما أنت تقول علبة سيادة ميركل آلي كرتو ملك ما فهمت ما شقيسو سيده هرب معها أفريقيا ما قال إنت سجل مالي آلي كرتو كينيا رتو ولا سكود آلي وحوين معها نيروبي وأنا أقول هاي لايسنس بدنا حكم حلاك دبي وكلا أنت أوجه as far as I know only ما حد عواي شركات حلال تركيش ايروز امات لما شركه بحر قادريه امات مid kala baxday Ethiopia Airways امات كل يا بحين fly Dubai امات سوق Somalia now is international market Uganda Air la joogto the airport is international service ka anaga Somalia waxa ku xoog galin service industry ku xoog galin waxa waaladeena bangiyadeena isgaarsiinteena diyaaradaheena maqaayadaheena we were very good in waxaas la had wal isku soo galay hada kafeeyana cabay Soomaali miskalahan is ajnabi waa Soomaali مقايدة بابروت لا أنت كتار وجاعد بكل جن محيتها ومقايد دبي اللي قال لي أصل كذا ماليزيان إيه فرنجايز سوار بيش ما قرأت الوحدة الفري how many international companies على فرق وفر نجري على فرق الله استقبال وكلوا وحالة فرق الله يا إنزو هم هرو فرنايد مقايد بدن وكلوا حاف فرن كوان chicken كسمين now the Somali market the service industry is had already hit alusumid bangiyada waxa uu maaday laba bangi oo mid already functioning waa shaqeeyaan already saameyntiis waa arka cash kiisii hormaan lacagta la diri jiray wixii la diri dabada loo jiri jiray out waa TT wax la hayo lacag dabada loo diray sidii hormaan the option is ma the consumer soo muqdisho ogtihiin tuulada ugu leeyahay caalamka ayaa muqdisho ka qurxoon maanta ayadoo saas ayaa maanta saf loogu jira loo soo kala ordaa waxay maana ziraacad bank Egypt bank shirkadaha diyaaradaha ugu waaweynaa kulli why because waxa la diidan yahay in if you don't adaad adi aadan somebody else will do adaad sameyn qof kale sameynaa region ka diyaarad weyn oo joogto oo anaga noo joogo male Uganda Air waa joogtaa maxaa la dhahay Kenya Airways waa imaad ma Ethiopia Airways waa joogtaa saddexda wadan noo dhaw waa joogaan carabtii shirkadaha ugu waaweyn waa joogaan Saudi Arabia inuu diyaarad kale noo dhiman diyaarad waxay tahay leeyahay fly nas midka Riyadh lahaay taweynta Saudi ma imaan karto way imaan kartaa ixtaan waxyaalaha ugu fiican shirkadaha wadamada meesha aad loo aado Saudi kamid moogta hadda waxa ku qasbantahay Dubai mar Kenya mar baalka waxa marta Ethiopia mar qadari mar rafaad waa inkastoo daalad toos u aado oo loo ay tahay fiicanta laakiin diyaarad Saudi adag si fiicnaa lahayd faham أكثر قيسنا على هذا هذا $100 وأدونك اسطنبول إلا بالك دبي $100 يا $100 اسطنبول دبي ما يقدر ديار ضد أنا لما 10 ديار ضد 10 ديار أفر عرفت الليين أفر الليين تركيا كنساس الليين أنا دولي الليين ثمين تقالوات أولوز ودن كسعودية ديارات قالية هي ديار ضد mid waxa way national carrier diyaaradda qaranka iyo waxa waxa dhahan budget airline diyaaradda raqiiska Turkiga laba leeyahay imaaraadka inta ugu hayr saddex waa maleena
fly Dubai air Arabia labadaas jirto Soomaa اتحاد يا خليجي بحرين وما مثلا marka waxyaalo badan jirto marka qofkan wax badan uu rabaa meeshan kaliya ma ekaanayo the business is hungry anaga meesha aan businesskeena aan ku fakarayo inaan kobcino anaga siyaasiyiinteena lacag jecel businessman keena aad u lacag jecelo xogaa hadoo helo tartiibkiisa usbiisu qaadana haduu guri fiican degan cimrigiisa aadi kara laakiin dad badan shaqaalaysiin bulshada wax u qabo hada fiir hindigan oo iska leh lulu hypermarket imaaraadku qabsaday hada sacuudiga galwaya waa hindi kullama if you open more business dad badan shaqaalaysiinaysa ana ganacsiga dhul lacag gelin dhul shaqaale laga meelo wax soo saar male ganacsigadeena wax baahi badan uma qabaan dadka inay kobciyaan maanta waxaan ognahay shaqaalaysiinta ugu badan inaysan lahayn wax la dhaho malahan public male مشاهد بدل ما بيحكي كلام مشاهدات كان بيحنا أقول جريد كيف $2 $3 أي واحد سكر ما بيحكي كلام برايفت كمشاهد بدل $4 $6 $4 بدل بيحكي كلام يعني شيل إيه هرمود إيمان أنت شغالة تتعاير إلا قبل ذي حيان شغالة جوجا أتيانا كتقصوا مقالي اللي أكتاير لكن دي شيء كبير بيرح كلام حولها كلام كلوميسي كلام إسكده يعني وحيالها يرك مقايدها وحيالها كفاية إيمانها كده وليها يعني بدل كاير لها السورية دي عقباتها يرك اللي هو هستنى إذا كان يكون استعمال مش وقت بحلة لكن they are not open minded هير كلا ربي ما جالس يسرو لو كده كده بوري جاي لكن واحد بقى بس كحل هو إني فران the future عالم كذا شو هذا لو أدلو هذا هاي بي برايفت كانوا على ليه حاسد وبتكون بالإكسبلويتيشن وسمينا ما كم حلا سمينا وحلا سمينا وحلا ده public private partnership شركات بدنا نسميه واحد يكون جولست بس بردي وحيالي أنا متعين أدون كنت حمرة privatization أنا كان محمرنا publication وحين محمرنا public قال أعلننا أدونك how many markets أنت وحياله برجله deciding waterfall approach ممكن لها إرجع وحلا جسوا دينسدي مادة project management أرد project management كذا project management يقول لي هاي methods two methods يقول لي هاي أو إلا يتدح حاجة طب الميدو كود waterfall approach agile approach hybrid waterfall معناه واحد سيد لو تلقى بيان هذا دادي ملحلحنا يعني توس مسعنا يعني وبعنا شقة توس سبرينكلر إيرس إنجليز كوتا قالوا واحد بيان سنة وطورة واي على كأنه علمي أو بارح على كأنه بون جلوبال شركة مركو هراء ولا تبع أيضا مكان الفرايد ويرتم ويرزين لكن واجرام potential market كم potential market مع كمية هذا شوية KFC one neighboring countries cultural diversity fewer countries ما لبنا الآن كلام بريكس وضمنها محلها بريكس محله يقنا وضمنها وقت سن عالمك وكل كعيوان وضمنها قف كجلو ماشان وجولست وبرازيل وروسيا وإنديا وتشاينا وبالكي ساوث أفريقيا وضمنها عادي ما صار ولما ساوث أفريقيا ولا سكري عملها معنا they are not potential above the four قاردنا وحنا الآن يا رجال الإسلام معنا تشاينا يمودوا يا إنديا روسيا مودوا برازيل مودوا وضمنها that's what Walmart وجولست Walmart ماشان يبوحان أنت دقيقين ماشان دقيقين Walmart سمارت أدوك وين ماشان يبوحان KFC من بيبسي سيارة كان جينول ده مالبورا مالها أنا جيجات بابورتا ماشان موبايلات ماشان جيجات كوان كوسو حاجة سوق كوسو حيوان كولومبيا إندونيسيا فيتنام إيجيبت ترك هذا ولا سكري صوت دري عن سو أفريقيا سو أفريقيا حاجة وجودها ثلاث ساعة وجودها تركي وضمان العالم وأدلو جعيها واي لكن أنا لو سوق الكرام واحد كستا أي كاسة مستو سواء برازيل وضمان حد على شكلنا مركب برازيل the biggest economics in Latin America 6th largest economy in the world 5th largest country of digital users high cost أنا كسو برازيل وحنا كأول لكن برازيل وده العادي ما برازيل أنا كحريم من لك برازيل الدون قص أجد برازيل هاي سيد أنت عالم كان أنا أنجونيان هاي جاينا هاي سمكس هذا أنا كماشي أنجون منطقة أنجون جايني إنديان هاي عالم كتجون وحاها هاي برازيل وإلا وحنا قال لك كندا إلا هوس إسبانيش كده يوروب حوا سوقل حسنا وحاها هاي برازيل هاي روسيا أصلا مثلا largest exporter of natural gas second largest oil the third largest exporter of steel يصيروا كل عنصر قمدي أركيس make heavy use telegram كي أسكله social media كأسكله بوجا محافظة 2016 حتى هذه بوجا عن فيرنا أول ليه تفكر سكتة صارنا روسيا عالم كوح عادي ما هذا التليجرام is much better than وحلا ده
wax badan wuxuu ka horeeyaa telegramka maanta wuxuu ka horeeyaa whatsappka telegramka jaamacad waa hadda waxbarashaduna iyada buug qoran buugga hadda buugga dhigan telegramka soo baxshay buugga hadda maanta ayna dhigaayo telegramka ka helay indii soo kale indii u baana ashirkanka beerad youtube maxaa ku soo baxay macallin hindi bara dhahay soo ma world second population aqoonta meesha taalo ana Soomaali xiriir badan ma leeyahay ana xiriirkan wuxuu bad Turkiga u bad meesha Turkiga san aan u dhax galay hindi dhax galay waxbaan ka faa'iiday laakiin Turkiga ka geysan hindida xagaas masaakiin wadankan dhibaato kasta gali karaan wadan xeeran meel xogaa jawi degan rabaan China sidoo kale arkaysin marka businesska ma ku soo Africa sidoo kale ana soo Africa waa access point to Africa halkaas faa'iido leeyahay laakiin not real liiskas oo ku jiro soo gali kara Indonesia caadi ma waa largest Muslim country waxyaalo badan waa nabadna waa heleen Pakistan liiskan soo gal lahayd laakiin nabad darriya ka jirto dagaalna waa lagu hayaa xogaa oo waxyaalo ma jirto suuq ma kaartina gashay markii you have many options mode of entry mode of entry maxaa direct investment joint venture licensing export iyo licensing ka ayadana waa fiicanta inta hadda maanta adinka kulligii arday waxaa tii MBA businesska idin furan kaasoo kala kamid ah shirkad caalami soo xiran adduunka waa isku furma hadda wiilal ishada waxaa ka diray xawaalad wuxuu lahayn iga sheekeynaa counterka joogo wuxuu dhahay bini'aadanka shan farad ma fahmi kara hooyo waxay arkaysaa oo dhahay wax aqoon gabar kale waxay arkaysaa wax aqoon wiil waxay arkaysaa wax aqoon oday waxay arkaysaa wax aqoon oo lacag u diraa nin Shiineys oo Philippines joogo meel joogo maxay isku fahanteen hada u dilacay ma kartaa hadda waxaa loo alaabta la soo raraa inta marka opportunity xog la ka jiro businesska caalamiga ah ina xiriirkaas wax badan ayaa ku jirta marka kuya lagu sheekeena indirect exporting domestic based exporting kana ma qabno we don't export Somalia waxyaalaha anaga ku liidan exports ka waa that's why shirkadaheena waa weyn waxa ka sii jeeda luuqyada ku wareeganaya xabsoodada iyo waxa galeen in iska dhaafana fiican they must go this business the inay waxaan garan raba ha leadership kooda wax fahamsaneen lacagta waxay ku helaan by luck nasiib ay ku helaan so maanta waxay ku wareegsanayaan waxyaalaha yar dadka isku direen waxaan kale u dhaafana fiican shirkad weyn waxay ka soo kuleysaa aniga waxa waaye wad isku filnaanshaan gaaray wax kasta ana haysto dadka maxaa u galata marka qalad waa in tissue waa lagu keenaa effort waa lagu keenaa wax kasta waa lagu keenaa haddii wax kasta aad samaysatid wax kasta aad kaystid lacag inta ka dhow geenay lacagta aan shaqaysan dubiya toos u geenay macquul ma waxyaalaha weyn in ka fikiraan la rabaa waa ku khasbayeen dadka soo jeesteen in la leeyahay dadku tooshan lagu hayaa shirkadaheena maxaa ku soo celi businesskeena yararka hadalka waa bilowday businesskan oo beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga hadii la maalgeliyo wax badan ay ka heli karaan faa'iido laakiin wuxuu u baahan yahay 10 years investment wuxuu u baahan billions qasaariis ma badan tahay faa'iidisna waa yartahay dadweyne wax tar lahayd laakiin ma rabaa kan quick money waa kan waa isku waa بجيكي ما أنت أجد دور أي شيء فإيه زائد واحد شنجبار واحد دايركت إكسبورت domestic based export department حيالها نوعاوي exporting اللي ولي شكينا free information about trade and exporting meelaha rabo in laga fiirsho ayay ka mid tahay export import bank waddan waxyaalaha kale waa meelaha aragtid information buugan waxaa loogu talagalay arday American ah loogu talagalay marka American adduunka u waa diyaarsaday hadda waxyaalaha marka arkaysid oo dadka xayiraad la saaray offer oo kale foreign assets monetary value waa yaabaysaa kala Mareykanka asaga caalamka uu booliska yahay oo ku qasbay umadiisa dadka digal meel kale aadaya noqday dadka ay ku darsanayaan waa in loo sheegaa liisaskaas waa in loogu daraa oo la fahamsiiyaa كمان هو ميلها لا هيلكر information شكرا استاذ لايسنسنج كمده لايسنسنج وحيالها ugu fiican kamida haduu aragtay LC oo kii kala keen Soomaaliya oo isbedel waxyaalaha business cusub kamida oo Turkiga anaga inta xoogana haysto way fiican tukaal aad u fiican waan tukaamada ma jiro Dubai iyo India buuxo max lahob way ma doonaan asaga still we are waxaan ka daba wareegsanona business ka hoosan ka daba wareegsanona the bigger picture ka waxaan u qabanayno ummadda waxay qabalaha of course there is security barriers like wala la tacaali kara laakiin markaad samayso warshad ay ka shaqeyso 1 milyan oo qof imaga shaqeynaysa maqaayad yar oo ay ka shaqeyso 30 wiil isku mid baa awood u leedahay kan ka shaqeyso marka maxaa soo kordhisa faa'iidada maxay tahay awla shirkad qaran way maddi wax tarta okay gaarsiina keentay xawaalada keentay wax badan ay samaysay now they have to move waa inay move gareeyaan fishery xeebta ugu dheer afka leena and we don't have a large fishery company tikad weyn oo soo kalluunka ma leeyahay
waxyar waay waa la samayn karaa hal shirkado tuunada samayso ummadda ka waxaan samay beeraha wax badan aan ka qaban karnaa xoolaha geela ugu culus adduunka Soomaaliya stock ugu badan oo geela Soomaaliya yaala baydidoo kale waxyaalaha allena natural resources keen waa samayn karnaa waxyaalaha ay kamid tahay licensing kaas adduunka waxa soo xiranaysa qofkaas leena u xiran damaqash license uu haystaa waa joint ventures kama qabno Soomaaliya doesn't exist at all waa qof ayna wax imaado waxa ka jirta labadan shirkado airport dekada kala joogo ayaa wax sameeyay laakiin inta kale waa jirta direct investment ma qabno still I don't remember shirkad direct investment oo Soomaaliya sameeyay shirkad ajnabi imaatay dhulka gadatay ee ma gelin sameysay waa yarta because of security issue agu shirkad in la gato shirkad ajnabi in shirkad gadato Soomaaliya ma ka jirto shirkadaha Soomaaliya in kadibada aadaan aydan waa sameeyaan waa yarna always markaan wax sharxay waxaan jeclahay inaan ku sharxo in perspective of Somali people inaan ku sharxo si aan u fahmo markaad rabtid inaad samaysid marketing programs ku waxyaalo badan jira economic scale lower marketing costs markaad dibadda aadid waxyaalo ka faa'iideysaa advantage maxaa waaye dadka kala nooca for example hadda KFC sidoo kale McDonald's ama meelahaas markaad dibadda aadaan wadan kasta cuntiis inay diyaariyaan cost-manta wadamada Asia markay joogaan waxay ku daraan qasbayeen ku daraan menu bariis ku daraan qasbayeen wadamada qaarkood bas basket waxay qasbayeen waa inay kala duwan so going abroad wuxuu ku badinaa option ku badinaa advantages حيسينتها waxyaabaha isbedelaysa new product line ku daraysa different yamaanays global central market pros and advantage kala wada advantage ka meelaha kala dhigtana imtixaan ku imaado naska fiirsiin deciding on market maxaa global similarity and waxyaabaha waa laga midaysan waxyaabaha farqi u dhaxeeya market approach maxaa loo kala duwanaa product features ka labeling colors ka materials ka waxyaalaha loo kala duwayo ayay kamid tahay global strategic product standardization كحياة هذا شركات عن أمازون شركات عالمية كمية أول حاجة جت حاجات كتير الوصول دي بقى قرار على كلام communications كمان كده بدأ أدد سيد الخلاصة ما هنا do not change communication adopt communication ما كعصب تاعي وعيك أنت stage كأجت لك وحرنتك يو ماشي أديك قرنيس product innovations محل قبنا backward innovation introduce earlier products وحيالها أدونك ولا بدل أقول ماشي ورا مرتجنا ناي وحسوا أيام الصدرة global pricing strategy pricing strategy مركب محصول we have only two pricing strategy لا بحبون market penetration and market skimming market penetration market skimming عكرية من ما كان سوق جنس قيس كذي سوق ضحك شرطة من حال ما كان سوق جنس قال كذي كيف عن متفي عن مثل ما جت أنت حالة أجبتك أنت لكن ما كان عالم كأديسيد ولكن بس بدل يزال global pricing strategy is different. Companies have three options. معاوي uniform pricing everywhere. الشركات قاعدة تملك كمية. هذا الشركات ركّ كذا وكلا. وحالك سواء قرن وحلو تساوي كذا. تكون كذا إشياء وكلا ماكس وكلا. ما بس عالم تسكميد واحد. same price واحد. شركات عم تساوي كمية. market based pricing إذا ما جت وضع كاستم كجوتت price كدنيا. cost based pricing معاوي علاقة أبسط قاعدة. كيف يعني كيف I told you always in management in marketing there is no right or wrong it depends on the situation وعيكو حالتها حالات أجوبتت أيكو حالتها صدق هذا في عيس صدق محو واحد وعيكو حالتها which one is more suitable for you كي هذا قوة حبون هنا قالت global pricing strategy transfer price dumping وحيلا وعيكو حالتها dumping وحق صدادين وان grey markets counterfeit برضو ألعاب أنا غير وحيلا اللي تديها channels of entry whole channel concepts سوق توصل وده حاجة أو بقول سماه country of origin هذا فرصة شركة أنا سومالي واجبتها شركة كمان وكيلها وهو شركة شقيس هم appliances وحيلا له لابها أجاب كل له استعماله وحكي عندنا وحيلا ربو أو قف وطن كاس الربو أي كحرنته ده سيد أنت سوق بينا شفت كان مكان بدنا سمري كسمينه أو قبل كسمينه شفت كان وحده وهذا لاي واحد ضهر سنين دبتكوا على الكرام أنا وقف هنا marketing concepts اسمه أذنك تبدأ كينا شغالاتي سمع وحاجة عشرين MBA ده حصل الشيء هو يقاركين شهادين هاي الشهادين but also you have to need to start your business سمع يعني بنعسي بالوديرة سمع now the options of international business is wide open حتى أدو جوكت it's very common نيش شيء نسأل عليك التحت ده اسكول هذا شيء نفتو كابحنا والله هذا بين هاي dear friend وأنا قلت مرتب ما تقول صحيح ده على باب كود بوحان واتساب كود ميكس فيسبوك بوحان هذه مال كستو the international business India بوحو تركيا بوحو بندقية تيكرتها وحيالات ما تيكرتها you just need to select industry إنك شيء أبرا ما فهم كاسان كان ليني أنا كم ميلا بنفيرنا قابك الله سمينا أيه وحيا لو فهمت يودك أنا كتكر أنا كنا أنا the only option is available for you students إن شركة ذي managers كنا قصين أما فاهم كنا أكو إشي أما ما أنا قصين options كأيستيد أيه كمية إنسان سوق الدولين جبتك thank you very much